Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena gambaleelka furo si aad u ogaato wararka iyo warbixinada iyo macluumaadka iyo muuqaalada aan halkan idiin soo gelino. Caawa waxaanu halkan idinku haynaa halkuu ku dambeeyay kiiska Caasha Ilyas ee raggii kufsaday ee go'aanka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo warbaahintu xalay su'aalo weydiiyeen ayaa la weydiiyay su'aal la xiriirta halkuu ku dambeeyay kiiskan iyo sababta uu saxiixi layahay sida loo fulin lahaa xukunka dilka ah ee ragga saddexda nin ah ee kiiska loo haystay. Madaxweynaha oo su'aashiisa ka jawaabaya ayaa sheegay in saddexda maxkamadood ee maxkamadda darajada koowaad, racfaanka iyo tasaraba ay kiiska dhammaantoodba isku raaceen in xukun lagu fuliyo, taasna ay tahay tallaabo kale oo hore loo qaado, isagoo sheegay inaysan jiri doonin meel kale oo loo leexdo ayna dhici doonto in xukunkaasi la fuliyo. Deni waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda ay u madax banaaneysay garsoorka, aysan jirin gacan dabamarin sida uu sheegay garsoorka oo go'aanka ay gaadheen yahay midka ugu dambeeya ay fulin doonaan. Waxa uu sheegay in xukuumaddiisa aysan marnaba faragelin arrimaha garsoorka, sidaa darteedna ayna meelna ka soo geli doonin xukun in la siyaasadeeyo ama si kale loo dhigo, isagoo sheegay go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda sare gaadhay uu yahay dil toogasho ah laguna fulinayo xukunka. Hadalkan ayaa imanaya iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu baahiyay warar sheegaya in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni uu diiday inuu saxeexo toogashada ragga lagu fulin lahaa dadkii ka dambeeyay u geystay dilka iyo kufsiga gabadhii yarayd ee Caasha Ilyas.